gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Ceelafina gobolkaasi Sanaag Cabdicasiis Saleebaan Ismaaciil xoogsade oo la hadlayay qaybo kamid ah warbaahinta ayaa xukuumadda Soomaaliland ku bogaadiyay sida ay hiiliyo hoob oo la garab istaagtay nabadeyntii laga waday deegaanadaasi degmada Ceelafin sidoo kale gudoomiye Cabdicasiis waxa uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay maadaama ay deegaanadaasi colaado fara badan ay ka dhaceen in deegaanadaasi hoos loo eego oo kuwan isaga arrimaha iyo arrimo kale ka hadlaya أنا قدوميها دقمة عرف من حسب كلمية عبدالعزيز سلام إسماعيل وعن هالكن سلام أدي أدو قيمة بدن وقدر إياه بدحونا تشبرد السومان لأن مدن المسبح عبدي لبضل قلا قرن نقولها وسير هذا لما أنتوا مدح قرك تشبرد السومان لأن برتن سلام أدي أدو قيمة بدن وقدر إياه هو ده يبودها شعب غير السومان لأن سلام كبعدي دقمة عرف وين وادو قيدين وحكى سعودي حالة نبت قليو nabadgelyada shirka nabadgelyada ku saabsan baa ka socday shirkii meel fiican buu inoogu soo xirmay maalin dhaweyto aad iyo aadna watii saxaafadda looga sii daayay social media arrimihiisa iyo qodobadii ka soo baxay labada beeloodna meel aad iyo aad u fiican bay wax isla dhigeen waana heshiiyeen runtii markii hore fiisaskii hore ee nabadeynta waxay ahayd in iyaga uun wax la dhex dhigo oo heshiisaad labada aan iyaga ka socon oo iyaga ka soo iba bixin in dusha laga keeno laakiin hadda way ka duwaneedo labada beelood iyaga meel isla fadhiistay ardaa wada fadhiistay arrimahoodii falanqeeyay nin walba wixii ku taagnaa ama ku bukay ama ku taagnaa ama dhibayay ka wada hadlay kana heshiiyey kabacdina ummadda reer Soomaaliland iyo xukuumadda la wadaagay arrintaas waa arrin aad iyo aad loo soo dhaweeyay bay noqotay oo guud ahaan degmada Ceelafin gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye daarahayna aad iyo aad loogu farxay runtii si gobonimo leh oo sharaf laba yeelan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa degmada Ceelafin ka shaqeynteeda tacab badan baa galay rafad badanna way keentay runtii waxaan aad iyo aad halkan ugu hambalyeeynaa dadaalka badan iyo tacabka badan oo geeyay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin waa wasiir aad iyo aad ugu xeel dheer dhanka ammaanka runtii qaabka uu wajahay nabadgelyada degmada Ceelafin waa qaab aad iyo aad u xeel dheer oo aad ku tusayso khibradda uu leeyahay ammaanka iyo arrimaha nabadgelyada runtii wasiirka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ka degmahan arrimaha iyo tacabka uu degmada ka qabtay sidoo kale waxa arrimaha gacanta labaad isna ahaa wasiirka qorsheynta qaranka Xasan Gaarfaadhi waxaanay sameeyeen dadaal fara badan number 1 horta colaad markay meel ka dhacdo ama ay colaad meel ka qaraxdo haddii la dabin kari waayo waxa kale oo la qabtaa waxa weeye in halka lagu xakameeyo colaadaas oo aan deegaamada kale iyo dhulka aan saameyn degmada Ceelafin saadun la socono colaadii ka socotay ma ay saameyn deegaamada kale sida degmada Garadag degmada Ceeri Gaabo iyo deegaamada kale waxa lagu xakameeyo lagu ururiyo degmada Ceelafin taas oo ay ku tusay xilleerida ay u leeyihiin wasiirka arrimaha gudaha u leeyahay arrimaha ammaanka runtii degmada Ceelafin iyo guud ahaan gobolka Sanaag waxa ka socda horumar ballaaran walow ay maartay turturooyin colaadada ay soo mareen haddana dhanka kale waxa ka socda maartay tartan horumarineed waan oran karayo waxa ay bafiru ahaa horumarka gobolka Sanaag wadada ballaaran ee Burco to Ergaabo degmada Ceelafin waxay soo martay marxalado badan oo maartay dib badan iyo waxyaalo badan colaadad bay soo martay bulshada hadda waxay u soo jeedaan inay ka shaqeyso arrimaha nabadgelyada sidoo kale arrimaha horumarinta inay ka shaqeyso dad badan boo dirtaba meeladii dib u furay oo soo noqday baa jira waxaan oran lahaa xukuumad ahaan dee bulshadii waajibkeedii way ka soo baxday inaynu inaguna kaalmayno oo wixii arrimaha asaasiga ah iyo MCH-yadii iskuulaadkii maxay ahayd oo dibadejin lagu sameeyo waayo nabadda iyo horumarku waa laba shay oo iskaaba shacabku waxaad moodaa inuu bislaado inay ka shaqeeyaan nabadgelyada xukuumad ahaanna in iyagana maartay iyadana lagala shaqeeyo way fiican tahay degmada Ceelafin guud ahaan dadka ku nool waxaan ugu hambalyeeynaa xukuumaddu inay hawlo badan oo mashaariic badan ay gacanta ugu hayso loona roonaan doono waajibaadka iyagu leeyihiin nabadgelyada ayuun bahaboon inay ka soo baxaan laakiin xukuumaddoodii waana la shaqeynaysaa wasiirka qorsheynta oo ka soo jeeda degmada إن شاء الله تعب بدن بقولين دونا ويصير كهرماء بدون أمان كنت كلا شغال دونا فرحت بدن بندير وجهي تكمل Ceelafin
geesta kale guddoomiyuhu waxa uu ka hadlay loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya xisbiga kulmiye waxaana hadalladiisi ka mid ah runtii maalmahan waxaa saxaafadda ama social mediaha ku jiray arrin tartan aada moodeen lagu soo dhex tuuray tartan siyaasadeed aada moodeen lagu soo dhex tuuray xisbiga kulmiye anigoo ah guddoomiyaha degmada Ceelaf Weyn Cabdicasiis Salebaan Ismaaciil waxaan soo jeedin lahaa lama joogo waqtigeedii iyo aaminteedii laga dhex furi lahaa xisbiga kulmiye tartan waayo lama gaadhin xilligii musharaxnimada uu qofku musharax usoo istaagi lahaa dhexe xisbigan waa ay kala codayn lahaayeen xisbigan waa xisbi dimuqraadi ah waa xisbi ku barbaariyay ummadda reer Somaliland dimuqraadiyadda ma fiicna mana habboonaa in loo sameeyo sumad reer oo astaantiisu ay noqoto astaan reeraysan ninkii hogaamin kara xisbiga hanna leh xilligiisa iyo waqtigiisa hala sugo ومحمد سويت التلفزيون كقرة كجمهورية الصوماليلان Ceelaf Weyn.